السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا بيشكا إيو جنالك دكتور سيكي waxay noo socday taxaanaheennii vital signs ama calaamadaha nolosha. qaybtani waa qaybtii koowaad ee calaamadaha nolosha. muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa wax loo yaqaano body temperature ama heerkulka jirka. body temperature ama heerkulka jirka waxaa laga maamulaa sida caadiga ah maskaxda, gaar ahaan qaybta loo yaqaano hypothalamus. jirkeena markuu kuleel ama qabow uu ku jiro waxaa maamula maskaxda, gaar ahaan qaybtan aan sheegnay ee hypothalamuska. tusaale ahaan jirkeena markuu ku jiro xaalad aad u kulul, maskaxdeena gaar ahaan qaybta hypothalamuska waxay fariin u diraysaa jirkeena, fariintaasoo ah in jirka la qaboojiyo. jirkeena wuxuu kaga falcelinayaa ama wuxuu soo saarayaa dhidid badan, sidaas ayuu jirka ku degayaa kuna qaboobayaa. sidaas si la mid ah jirkeena markuu ku jiro xaalad qabow ah, maskaxdeena gaar ahaan qaybta loo yaqaano hypothalamuska waxay soo daynaysaa maado loo yaqaano norepinephrine. maadadaasi waxay isbedel ku sameynaysaa qabowga jirka, marka waxaa sare u kacayo kuleelka jirka, heerkulka jirkana wuu isla ekaanayaa. marka si guud haddaan soo koobo, maskaxdeena gaar ahaan qaybta loo yaqaano hypothalamuska waxay maamulaysaa heerkulka jirkeena, ha noqdaan qabow iyo kuleelba. waxaan filaynaa isla fahanay sida normalka ama sida caadiga ah ee loo maamulo heerkulka jirkeena. heerkulka jirkeena sida caadiga ah waxaa lagu cabiraa mashiin loo yaqaano thermometer. mashiinkan thermometerka wuxuu u qaybsamaa ilaa dhowr nooc oo kala duwan. nooca koowaad waxaa lagu magacaabaa digital thermometer, waana nooc digital ah sida shaashada idinka muuqataba. nooca labaad waxaa loo yaqaanaa tympanic thermometer ama tympanic membrane thermometer. noocan loo yaqaano tympanic thermometerka waxaa lagu cabiraa heerkulka jirka, meesha laga cabirayna waa dhegta gudaheeda. marka mashiinka ayaa soo qaadanaysaa, waxaa gelinaysaa qaybta dhuuban dhegta gudaheeda, waxaana ku haynaysaa 4 ilaa 5 sekin. kadibna 5 sekin kadib waxaa helaysaa jawaabta heerkulka jirkaaga. nooca saddexaad waxaa loo yaqaanaa temporal artery thermometer. noocan inta badan waxaa laga cabiraa foreheadka ama dhafoorka oo ah qaybta hore ee wejiga. qaybtan ayaa laga cabiraa inta badan. marka mashiinka ayaa soo qaadanaysaa, kadibna waxaa marinaysaa qaybta foreheadka ama qaybta dhafoorka ilaa 4 sekin ilaa 5 sekin ayaa marinaysaa. kadibna wuxuu kuu soo saarayaa jawaabta heerkulka jirkaaga. qayb kaloo afraad oo waxaa jira loo isticmaalo caruurta. qaybtaas waxaa loo yaqaanaa pacifier thermometer. noocan wuxuu egyahay sida masaasada oo kale, cunug wuxuu u nuugayaa sida masaasada oo kale. kadibna 5 sekin ilaa 10 sekin wuxuu soo saarayaa jawaabta heerkulka jirkaaga. haddaba halkee ayaa laga cabiraa heerkulka jirkeena? heerkulka jirkeena waxaa laga cabiraa meelo kala duwan. meelahaasi waxaa ka mid ah afka, dhegta gudaheeda, maqaarka, sidoo kale kilkisha iyo sidoo kale rectalka. guud ahaan 5taas root ama 5taas meel oo kala duwan ayaa laga cabiraa heerkulka jirkeena. haddaba imise ayaa laga rabaa qofka caafimaadka qaba inuu noqdo heerkulka jirkiisa? heerkulka jirka mar walba waxay ku xiran tahay halka laga cabirayo, laakiin tirada caalamiga ah ee la isla ogahay ayaa ah qofka marka laga cabirayo afka waxaa la rabaa inay noqoto 37 Celsius ama degree Celsius. sida caadiga ah heerkulka jirka waxaa lagu cabiraa laba halbeeg. halbeega koowaad waxaa loo yaqaanaa Celsius ama degree Celsius. nooca labaad waxaa loo yaqaanaa degree Fahrenheit oo loo soo gaabiyo F, kii horena waxaa loo soo gaabiyaa C. marka labadaas halbeeg ayaa inta badan lagu cabiraa heerkulka jirka. haddaan soo noqono sharaxaadiina, marka laga cabirayo afka waxaa dhahnay waa inay noqotaa 37 Celsius ama 37 degree Celsius. si kale haddaynu u dhigno 98.6 Fahrenheit. marka laga cabirayo dhegta waxaa la rabaa inay noqoto 37.6 Celsius ama 99.6 Fahrenheit. marka laga cabirayo rectalka waxaa la rabaa inay noqoto 37.6 Celsius ama 99.6 Fahrenheit. marka laga cabirayo axillary-ga oo ah kilkisha waxaa la rabaa inay noqoto 36.6 Celsius ama 97.6 Fahrenheit. ugu dambeyn markii la rabo in laga cabiro temporalka ama dhafoorka oo ah qaybta hore ee wejiga waxaa la rabaa inay noqoto 37.3 Celsius ama 99
2 Fahrenheit. guud ahaan jadwalkaas ayaad isticmaalaysaa markaad rabtid inaad cabirtid heerkulka jirkaaga, waxayna ku xiran tahay halkaad ka cabiraysid. haddaba heerkulka jirkeena markuu sare u kaco waxaa loo yaqaanaa hyperthermia, ama markay qandho ku qabato afka caafimaadka waxaa u naqaanaa hyperthermia, oo ah inuu sare u kacay heerkulka jirkaaga. sidaas si lamid ah heerkulka jirkaaga markuu hoos u dhaco oo aad dareentid qabow zaa'id ah waxaa u naqaanaa afka caafimaadka hypothermia. labadaas eray ayaa inta badan loo isticmaalaa heerkulka jirka. sidoo kale waxaa muhiim ah inaad ogaatid heerkulka jirkaaga markuu sare u kaco ama aad dareentid qandho ama xumad ma ahan cudur, ee waa astaan kuu tilmaamaysa cudur iyo waxyaabo kale. halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wax loo yaqaano body temperature ama heerkulka jirka. waxaan rajeynayaa wax inaad ka faa'iiday. muuqaalka xiga waxaan ku sharxi doonaa pulse rate oo ah garaaca wadnaha. anigoo kaaga mahadcelinaya daawashadaada muuqaalkan, waxaan kuu rajeynayaa kheyr iyo caafimaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.